walaalayaal waxaan si khaas ah maanta ula hadlayaa adoomaha Ilaahay gaar ahaan dumarka adoontii Allah ha noqonin adoon ha u noqonin ibliiska u noqo adoon Ilaahay u noqo waxa jira gabdho badan oo marka kor laga arka aad isleedahay waa adoomo Ilaahay laakiin xaqiiqadii aanan ahayn oo ah adoomo ibliiska dhaar waa tuu ku maray wallahi Ilaahay buu dhaar u marayaa wallahi waan amrayaa ilmaha aadam waan amrayaa waxaan yeelanayaa oo aan ku yeelanayaa adoomo aniga ii caabuda oo ay abuurkaagii bedelaan abuur kale aan u samaysto kuwa aniga ii go'an ayaan yeelanayaa ha ku fikirin buu leeyahay ibliiska Ilaahay buu ku leeyahay in ilmaha aadam oo dhan ay adiga adoomo ku noqdaan waqala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruuda qayban ku yeelanayaa buu leeyahay waa kuwee adoommada ibliiska من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وكأنه لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ودور روحه لعنة يا رسولك إلهي أي لعنة ذيان إسلامك لعنة ذيو وأدومها إبليسك أدومها إلهي لما لعنة قبضه halka timaha halka ku yaala timaha gabadha xiirta xaajibeenka sunniyaha xiidha ama yaraysa tan sameeysa tan loo sameeyo iyo kuwa mustawshimaadka oo isu yeela taatuuga jirkooda wax ku sawiro bedela ku raali ahaan waayo quruxda Ilaahay jirkoodii u yeelay oo bedela ama halka bar u yeela ama sidii hindidii halka wax u sameeysta ama halka iska turqa kuwa ilkaha feedfeedha ibliisku uu amray uu leeyahay arfanax isu yeel ti Ilaahay arkimayaan qaybta Ilaahay si arkimayaan oo ay ku ahaayeen adoomo alle ibliiski ba amraaya saa ibliisku wax ma abuuri karaaya oo isaga awood ma laha uu insaan ku abuuro laakiin wuxuu dhaar ku maray in uu abuurka Ilaahay faragelinayo gabadhii Ilaahay maarin ka yeelay gabadhii Ilaahay ilkeedii isku dhajiyay gabadhii Ilaahay sunniyaha u yeelay gabadhii Ilaahay jirkeedii qurxiyay isaga wuxuu dhahayaa sida qurux maaha wuu bedelayaa marka wuuna amrayaa wariyaa amarka qaata amarka waxa qaata qofka adoonka ah qofka adoonsanaya ayuu amarka ka qaataa adoomaha Ilaahay bay amar ka qaataan adoomaha ibliiska ruuxad naxariista Ilaahay ku waayeysa oo jannadii ku waayeysa naxariis adduunyo mid aakhir ku waayeysa islaamka ayaad uga fogaanaysa timaha soo aad xiirtay kaliya ilkaha aad feerfeertay Ilaahay baan ku dhaariyay imisa guriyaheena gabdho malcuunada ay ku jiraan oo waliba aanu arkeen horteen ay ku sameeysanayaan gabadha markii aroosaysi wixii oo dhan way bedelaysaa bal midabkeedii bay bedelaysaa bal waxay bedelay ilkaheedii abuurka Ilaahay bay bedelay abuur ibliis bay raacay say barako doonaysaa gabadha iyada ah abuurkiisina bedelin aynu noqonay idaylkeen adoomo Ilaahay alladhi la tadii'u wadaa'i'uhu salaamu alaykum wa rahmatullah